iyadoo lagu jiro toddobaadka xorriyadda ee Soomaaliya ayaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay xuska sanad guurada 59aad ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee dalka waxaana munaasibadan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka ardayda Soomaaliyeed ka soo qayb galay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ganacsade Farxaan Maxamed Doore iyo macallin Mahad Cali Abuukar oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa xusay qiimaha maalmaha xorriyadda iyo geesiyaashii naftooda u huray sidii Soomaaliya ay uga xoroobi lahayd gumaystaha waxaa sidoo kale madasha suugaan wadani ah iyo dardaaran ka jeediyay Najax Qaasim Cali iyo Ayaan Axmed Caydiid Kaaba inteena soo haday naga go'an tahay Soomaalinimada isku sina ay qulubteena ugu jirto Soomaaliya iska day adduunka dhan baa wax ka bedeli karnaa wadanku maanta inagu inay sugaya cid kale ma sugaya dhalinyaro waa u jeedaan siyaasiyiinteena waaweyn ee ku soo bartay maamada yaanyada gadi jirtay canshuurteeda waa ku burburiyay wadanka laakiin inagu waxa ku soo baranay hooyadeen oo dawlad aan ugu soo korisay marka wadanka inagu nu sugaya waa inaan si u fikirno macquul ah waagaan cusboonaa isi iyo karaamiye carfi baan lahaan jiray casrigani ha yeeshee cidna ima daryeesho waxa aan qabaaceen dushayda colaad iyo cadho lagu galaa badan cabashan tirsanaya waxbayaan cataabina cishadeedii baa iman sharafteedii baa curan waxa soo rogaal cili maalmii cudoona anay caalamkoo idil badaha camiran iyo caradayda wada iman cirka sare ayaan tidi cagtakii ijiiday curyaashii waa hore curadkiisi baa iman oo cadaalad la raba kuwa maanta caasi igu sheegay caamana bari iyo ciyaartoy safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasibadan lagu xuseeyay maalinta xorriyadda ee 26 Juun aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladan qiimaha badan aynu caaw ku xusano habeenkii xorriyadda 26 Juun oo caawa ay nagu sharfeen ururka ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku barata dadaal aad u badan bay bixiyeen midnimay muujiyeen karti bay muujiyeen isku xidhnaan bay muujiyeen xirfad bay muujiyeen wadaniyad bay muujiyeen waxqabad bay muujiyeen waxaynu u baahannahay Soomaali midaysan sidii Najax u sheegtay waxaynu u baahannahay Soomaali muslim ah sidii Najax u sheegtay waxaynu u baahannahay Soomaali madax bannaan marka runtii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeeynayaa sida uu uga shaqeeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee maanta Soomaaliya oo qof kasta u qiray in Soomaalidu maanta madax bannaan tahay Soomaalidu inay madax bannaan tahay oo go'aankeedu u madax bannaan tahay ugu dambeyntii danjira jaamaca ayaa ardayda iyo shacabka Soomaaliyeed ee Turkiga ku dhaqan ugu baaqay inay xoojiyaan midnimada wadajirka iyo wax wada qabsiga iska ilaaliya in la idin kala qaybiyo Soomaali baa tihiin markaad waliba wadan ka soo baxdaan ee aad dibadda joogtaan Soomaali kaliya ahaada suurtagal ma aha idinku halkan jooga oo 80 milyan oo qof la nool 80 milyan oo qof la nool oo hal magaca Turkidu su'aal baan idin weydiinaya Turkidu miyay idin kala sheegtaan qabaayil waba kula yaabayaan Soomaa marka min fadlag meel fiican baad baranaysaa aan dib leedin celinin Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Ankara